kutafuta passport marka passport raadsanaysid wax kasta meesha waa macquul wax kasta lagu weydiin karaa u diyaar garow kwa nini unataka passport maxaad u rabtaa passportka nataka kusafiri nayo waxaan rabaa inaan ku safro ulitoka wilaya gani waxaa lagu leeyahay degmadee ka timid ulitoka wilaya gani districtige ka timid ama degmadee ka timid marka qaar isku daraa ulitoka district gani hadii lagu dhaho ku talagal English waa wilaya gani na degmadee nilitoka waxaan ka imid wilaya ya Garissa ka imid ulitoka mkoa gani gobolkee ka timid ulitoka mkoa gani gobolkee ka timid province ala gobol ya ama region kee ka timid nilitoka mkoa wa northeastern waxaan ka imid northeastern maxaa soo xal lagu dhahaa waxaa lagu leeyahay kaskazini mashariki laakiin northeastern aad loo isticmaalaa waa English marka calaamada ku saaray ulitoka kijiji gani tuuladee ka timid ulitoka kijiji gani tuuladee ka timid nilitoka mtogashi aan ka imid number 5 ulitoka mjini gani magaaladee ka timid nilitoka mjini Garissa magaalada Garissa ka imid hadii kale oo tuulo ka timid lacala ulitoka ushago gani lagu dhaho waxa la nilitoka ushago baadiyahan ka imid ukona ID sharci ma haysata number 6 ndio niko nayo hawaan haysta baba yako anaitwa nani abaha magaciisa lagu weydiin karaa iska taxadar baba yangu anaitwa Muhammad mama yako anaitwa nani hooyada magaceed mama yangu anaitwa Sadio baba yako ako hai abaha manoli hai hapana baba yangu alikufa maya abihi waa dhintay mama yako ako hooyada ma joogtaa ama mama yangu ako hooyada way joogtaana waa loo isticmaalaa labadaba su'aal way noqon kartaa jawaabna way noqon kartaa ukona kaka ngapi meeqa walaal leedahay nikona kaka 20 walaal familia akona okay familia yako ni watu wangapi familia yako ni watu wangapi familia yako ni qof familia yangu ni watu 20 wala 20 qof haya ereyada ka faa'iideysa tilmaamta kusini south koonfur kaskazini north waqooyi mashariki bari mashariki east aniga English baan ku naqaanaa bariga iska cariisanina magharibi west Allah English magharibi wax lagu dhaaf Soomaali aad ku soo sheegay kutafuta ID marka raadsanaysid jina lako nani magaca jina langu ni Ali magacayga waa Ali ulizaliwa lini goormay dhalatay nilizaliwa mwaka 2002 ama mwaka 2002 waxaan dhashay 2002 ulizaliwa wapi xagee ku dhalatay nilizaliwa Garissa ku dhashay inta ugu horeyso waa su'aalo naftaada la weydiinayo tan xigta waa kana number 4 fiirso wewe ni raaya waa inchi gani adigu muwaadin dalkee tahay ilaan Soomaali Kenyaan iyo Soomaaliya jirta marka wewe ni raaya waa inchi gani adigu waa muwaadin dalkee tahay mimi ni Mkenya ani Kenyaan baan ahay uliishi Kenya kwa muda gani Kenya muda intee la ega ku nooleed niliishi Kenya kwa muda mingi muda badan ku noolaa ay kwa nini unataka kuchukua ID maxaad doonaysaa inaad ID u qaadato nataka kufanya kazi nayo waxaan rabaa inaan ku shaqeysto ama shaqo ku qabto unajua katiba ya Kenya mataqaana dastuurka Kenya ama constitutionka Kenya ndio garania namba 8 cheti chako cha kuzaliwa iko wapi dhalashadaada aawe iko hapa watana kitambulisho cha baba yako iko wapi sharciga aabaha aawe sharciga aabaha ina ku talagasho lagu weydiina ndio hii shika watana ho kitambulisho ya mama yako iko wapi aawe hooyada sharcigeeda hadii hooyada dhimato xaleeda mama yangu alikufa hooyada way dhimatay hadii heesana ndio hii shika watama garan umekuja na nani yala timid nimekuja na dada yangu walashi yala imid umeleta picha za pasipoti makentay sawiranta passport kuwa half kama kentay nani ndio aladaha nani anakudhibitishia wewe ni Mkenya ya noo cadeyn karina adii Kenyan tahay dada yangu ama baba yangu qofkii markaas kula socda sheegay aabahay ama walaashii markii kula socda sheeganay umeleta cheti cha shule makentay shahaadada iskoolka ama certificate iskoolka erayadan ka faa'iideyso raaya muwaadin inchi wadan inje banaanka asku qaldan inchi wadan inje banaanka katiba dastuur cheti shahaado kuzaliwa dhalasho kufa dhimasho hay nolol afcaal way ka timid kudhibitisha cadeyn dhamin
Panguza dukaanka tirtir. Panga nguo dharka hagaaji. Kunja nguo dharka laab. Rudisha nguo dharka celi. Weka chini dhulka dhig. Weka mahali mzuri meel fiican dhig. Rangi midabada noocyadooda iyo usi madow iyo upe cadaan iyo kundu guduud red, manjano jaale, kijani green ama cagaar, kijifu grey dambas inuu yahay umaleyna, machungwa grey dambas in lagu dhahay Soomaali umaleyna isku soo day, machungwa orange, blue samawati, stop it, samawati iyo blue isku macno waa blue laga wada, kahawa qaxwo, pinki ama waridi waa midabka pinkiga ah. Good, halkaas waxa waa kalaradana ugu qoran. Sambarao ha ilaabina waa purple Soomaaliga ku soo sheega sagana. Inta imo maneno mapya eraya cusub, maziwa caano, meza miis, mlango albaab, shati, mchanga caro, simu telephone, meno ilko, nywele timo, kifunguo fure, ukuta derbi, runinga TV, sakafu dhulka laha ama floor dhulka smidka, damu dhiig, majani caleen, makaa dhuxul, nyasi waxa la cawska grass, dahabu dahab. Erayadan kalena soo fiiri. Pazia waxa la yiraahdaa daha ama curtain, lami leewa shilingi lacagta shilinka, kalamu qalin, kitaabu book, karatasi bac ama warqad labada waa la yiraahdaa, viatu kabo. Kiswahili uko wapi xagee joogtaa? Mimi niko nyumbani, ani gurigan jooga. Mimi niko hospitalini, hospitalkan jooga. Mimi niko msikitini, anigu masaajidkan jooga. Mimi niko kazini, anigu shaqadan jooga. Diidma markaa rabo inaan ka dhigo waxaa leeyahay mimi siko nyumbani, ani guriga ma joogo. Mimi siko hospitali, ani hospitalka ma joogo. Mimi siko msikitini, ani masaajidka ma joogo. Mimi siko kazini, ani shaqada ma joogo. Wewe uko adigu waxaad joogtaa. Wewe uko shuleni, adigu iskoolkaad joogtaa. Wewe uko barabarani, adigu wadadaad joogtaa. Wewe uko dukaankaad joogtaa. Ku kaanusha ama diidmo ama negative hadaa rabo inaan ka dhigo waxaa leeyahay wewe uko shuleni, adigu iskoolka ma joogtid. Wewe uko barabarani, adigu wadada ma joogtid. Wewe uko dukaan, adigu dukaanka ma joogtid. Yaya ako Soomaali, isaga Soomaali jooga ama iyada Soomaaliya joogtaa. Yaya ako Kenya, isaga wuxuu joogaa Kenya ama iyada waxay joogtaa Kenya. Yaya isaga ma iyada loo isticmaalo. Ku kaanusha diidmadeeda waa maxay? Yaya hako Soomaaliya, iyada ma joogto Soomaaliya. Yaya hako Kenya, iyada Kenya ma joogto. Qaybta kalena sisi tuko, anagu waxaan joognaa. Sisi tuko uwanjani, anaga garoonka joognaa. Sisi tuko isli, anaga isli aan joognaa. Ku kaanusha diidmo. Sisi hatuko uwanjani, anaga garoonka ma joogno. Sisi hatuko isli, anaga isli ma joogno. Ninyi muko adinku waxaad joogtiin. Ninyi muko Kenya, idinku waxaad joogtiin Kenya. Ninyi muko Nairobi, adinku waxaad joogtiin Nairobi. Mukoodaas waxaa loo isticmaalaa ama ninyi adinkoo dhan. Ku kaanusha diidmadeeda waa maxay? Ninyi hamko Kenya, idinku Kenya ma joogtiin. Ninyi hamko Nairobi ma joogtiin. Xasuusnoo jamaciyada dhan ha laga hormarsiyaa bas. Tuuda iyo maadi isbedeli doonto insha Allah. Number 6 wako ayagu way joogaan. Wako Ethiopia joogaan. Wako shuleni ayagu iskoolka joogaan. Ku kaanushadeeda waxay noqonaysaa hawako Ethiopia, ayagu Ethiopia ma joogaan. Hawako shuleni ayagu iskoolka ma joogaan. Okay, xalay ka hormarsiinina waada u wato intaas xasuusnoo. Su'aalahan xasuuso oo koowaad xagee joogtaa. Nikoowaad aniga xagee joogaa. Koowaad ayada xagee joogtaa ama isaga. Tukoowaad aniga xagee joognaa. Mukoowaad adinku xagee joogtiin. Wakoowaad ayagu xagee joogaan. Waxaan dhahay sisi tu haday ahayd sisi hatu. Ninyi mu haday ahayd ninyi hamko. Okay, wako haday ahayd hawako ay noqonay. Ha laga hormarsiinaa dhamaantood.